بسم الله الرحمن الرحيم qodobada tabinta iyo baahintan aan idinkugu hayana waxa kamid ah khilaafaad xoogan ayaa laga soo waramayaa in uu ka dhax jira caawa mas'uuliyiinta ugu sareysa ee wadanka Iran arintani waxay soo shacbaxday kadib markii waraysi live ah oo toos ah oo xalay bixinayay afayeenka baarlamaanka ahna ninka malafka wada xaajoodka gacanta ku haya ee Mareykanka ay kula jiraan wadankaasi Maxamed Baaqir Qalibaf laga jaray telefishinka dawladda warbixin gaar oo arintaasi ay ku qorayso warbaahinta Qatar gaar ahaan telefishinka Al Jazeera ayaan caawa barnaamijka idin kula wadaagi doonaa muxuu ku saleysan yahay khilaafkan waxaan sidoo kale barnaamijka ku la faguraya madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa ka hadlay qodobo xasaasi ah waxana uu yiri hadii ay madaxda sare gaar ahaan murshidka ugu sareeya Iran ama ayatullaahiga oo amri lahaa inaan wada hadal la aadin waxaan guud ahaanba joojin lahayn wada hadalka iyo waliba in dhinacyada Mareykanku ay wada hadalka la sameeyaan la sii wado waxa uu xoojinayaa khilaafka mise waxa uu jawaabayaa dhinacyo kale barnaamijka ayaa sidoo kale ku ogaan doontaan dawladda Iran iyo Washington waxa lagu soo waramayaa safgarad kale oo dheeriya inay ku gaareen magaalada Doha kadib wada hadaladii halkaasi ka socday dawladda Pakistan iyo Qatarna waxay goor dhaweyd soo gabagabeeyeen kulan ay si gaar ah ula lahaayeen mas'uuliyiinta wadanka Iran ee Doha joogta maxay ka wada hadleen qodobadaas iyo dhacdooyin kale ayaan ku fiirinayaa barnaamijka caawa iyo la fagurka caalamka diblomaasiyadda iyo waliba taxliilinta amniga soo dhawaada wadda Iran waxa lagu soo waramayaa khilaafaad xoogan in iminka laga soo sheegayo dhinacyada badan ee wadankaasi loolanka u dhaxayo arintani waxay banaanka u soo baxday kadib markii xalay la jaray waraysi toos ah isagoo aan dhameysan gudoomiyaha baarlamaanka uu siinaya telefishinka qaranka wadanka Iran arintani waxay ka dambeysay markii qayb ka mid ah mas'uuliyiinta talada haya ee wadanka Iran ay ka ganaasaceen ama ay diideenba hadalkiisa iyagoo u arkayay in wadanka Iran loo gacan gelinayo wadanka Mareykanka haddaba dooda ka taagan gudaha wadanka Iran waxa warbixin gaar ah ka qoray telefishinka Al Jazeera muran siyaasadeed ayaa ka dhaxqarxay hay'adaha dawladda Iran kadib markii telefishinka rasmiga ah ee dalka uu si lama filaan ah u jaray waraysi hore loo duubay oo la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran Maxamed Baaqir Qalibaf kaas oo sidoo kale ah hogaamiyaha wafdiga Iran uga qayb galaya wada xaajoodyada la yeeshay dawladda Mareykanka dhacdadan ayaa dhalisay eedeymo xoogan oo ka yimid baarlamaanka iyadoo loo arkay in ay muujinayso khilaaf qoto dheer oo ka dhax jira nidaamka Iran ee kacaanka gaar ahaan arrimaha la xiriira wada hadalka Washington iyo jihada siyaasadda ee wadankaasi waraysiga oo bartamaha lagu joojiyay muxuu ka hadlayay maxaase ka dhax muuqanayay telefishinka dawladda gaar ahaan qaybta wararka ayaa baahisay waraysi uu Qalibaf kaga hadlayay dagaaladii ugu dambeeyay ammaanka marinbiyoodka Hormuz wada xaajoodyada Mareykanka iyo Iran iyo qodobo ku jira heshiiska is-afgaradka ahaa ee Islaamabad hase yeeshee baahinta waraysiga ayaa si lama filaan ah loo joojiyay xilli uu Qalibaf sharaxayay habka loo sii deynayo lacagaha badan ee Iran uga xayiran dibadda warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in hakad ku yimid markii uu ka hadlay qorshaha lagu iibsanayo baa la yiri arrimaha la xiriira raashinka sida sarreenka qamadiga iyo lacagaha dawladda Iran ay soo bandhigtay in loo sii daayo in Mareykanku ay yiraahdeen beeraheena wax looga iibsado isla markaana arintaasi uu ku xiriiriyay dawladda madaxweynihii hore ee wadanka Iran Ibrahim Raisi madaxweynihii ay la soo dhici jirtay diyaaradda baarlamaanka ayaa dhaliil u jeedinaya telefishinka dawladda hadda xubno kamid ah baarlamaanku waxa ay leeyihiin sida telefishinka uu shaqeynaya maaha wax loo dulqaadan karo xarunta warfaafinta baarlamaanka Iran ayaa sheegtay in waraysiga loo diyaariyay fulinta awaamirta hoggaanka sare ee dalka si shacabka loogu sharaxo shuruudaha heshiiska Islaamabad waxa uu intaasi ku daray in waraysiga uu ahaa mid hore loo duubay isla markaana telefishinka la gaarsiiyay wax ka badan 2 saacadood ka hor waqtiga baahinta baarlamaanku waxa uu ku eedeeyay maamulka telefishinka inuu hakiyay waraysiga isagoo aan wax ogolaashiyo ah ama wargelin ka helin baarlamaanka isagoo sheegay in hadii la doonayay in ay qayb laga reebo ay ahayd markii hore in la sii socodsiiyo maxaa laga jiray waraysiga maxayse dawladda Iran waraysigaasi xasaasiga ah ay Qatar uga arkeen muxuu si yahay waxyaabaha sida gaarka loogu tuhmay Qalibaf
kooxda warbaahinta ee Qaalibaaf ayaa sheegtay in qaybaha aan la baahin ay ka koobnaayeen jawaabaha eedeymaha ku saabsan baaritaanka goobaha nuclear-ka Iran faahfaahinta dadaalada lagu sii deynayo lacagaha Iran ee dibadda ku xayiran sharaxaadda sanduuqa dib u dhiska oo lagu sheegay inuu gaarayo 300 bilyan oo dollarka Mareykanka jawaabaha hadaladii madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump sharaxaad ku saabsan fulinta ama fariinta hoggaanka sare ee dalka ee la xiriira heshiiska telefishinka waxa uu markii ugu horeysay isna ka hadlay mas'uuliyiintiisa ay faahfaahiyeen sababaha keenay in wareysigaasi la joojiyo waxana ay difaaceen go'aankooda dhinaca kale maamulka idaacadda iyo telefishinka dawladda ayaa sheegay in wareysiga loo kala qaybiyo laba qaybood isla markaana qaybta labaad dib loo sii deyn doono hase ahaatee siyaasiyiinta qaar waxay u arkayaan tan inay tahay arrin aan la qaadan karin oo siyaasadii ay ka dambeysay si kastaba ahaatee jawaabtaasi ma aysan qarcin baarlamaanka iyo siyaasiyiin badan kuwaas oo ku adkaysanaya in wadatashi laga sameeyo baa layidhi go'aanka lagu hakiyo wareysiga muran siyaasadeed oo sii xoogaysanaya oo wadanka Iran laga soo sheegayo arrintan ayaa si degdeg ah ugu gudubtay muran farsamo oo warbaahineed isuna bedeshay khilaaf siyaasadeed oo xoogan bogga rasmiga ah ee baarlamaanka ayaa daabacay maqaal si kulul uga cambaareynaya telefishinka dawladda isagoo ku tilmaamay sida loo maareeyo wareysiga inay ahayd fal aan xirfad aysan ka muuqan sidoo kale xildhibaan Mujtaba Saray ayaa ku tilmaamay dhacdada dhaqan anshax xumo ah isagoo ku eedeeya koox ku dhex jirta telefishinka inay ka shaqeynayaan dara siyaasadeed oo ka baxsan hay'adaha dawladda ee qaranka waxana uu sheegay in kooxdaasi ay qayb ka noqotay baa waxa ugu yeeray dagaalka warbaahinta iyo sheekooyinka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweyne Trump iyo Qaalibaaf iyagoo dalbaday baaritaan degdeg ah in la sameeyo eedeymo loo jeediyay garabka Saciid Jaliili oo siyaasi ah oo wadankaasi jooga ayaa arrintan soo muuqatay durbadiiba warbaahinta isbedel doonka ah ee Iran ayaa ku dooday in telefishinka dawladdu uu si weyn u saameynayo garabka siyaasadda ee uu hogaamiyo Saciid Jaliili oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu adag ee muxaafadka warbixintu waxay tilmaameen in walaalkiis Waliid Jaliili uu yahay ku-xigeenka madaxa hay'adda idaacadda iyo telefishinka taas oo si xoojisay baa layidhi toonka la xiriira faragelinta siyaasadeed ee warbaahinta Iran khilaafka gudaha ee nidaamka ka jira hadda muxuu ku salaysan yahay waxa uu ka gudbay xeyndaabkii qarinta waxana uu yimid fagaarihii warbaahinta iyo ra'yiga dadweynaha falanqeeyaal badan ayaa aaminsan in dhacdadan aysan ku koobnayn jarista wareysi oo kaliya balse ay muujisay loolan xoogan oo ka dhex jira hay'adaha awoodda ee Iran khilaafku waxa uu salka ku hayaa cidda maamulaysa sheekada rasmiga ah ee ku saabsan wada hadalka Mareykanka iyo Iran iyadoo baarlamaanka iyo kooxda wada xaajoodku ay difaaceen heshiiskan halka garabyo kale oo muxaafada ay u arkaan tanaasul siyaasadeed iyo bahdil lagu sameeyay qarabka Iran inkastoo mas'uuliyiinta baarlamaanku ay sheegeen in aan loo baahnayn in muranka loo sii horiyo si loo ilaaliyo midnimada qaranka haddana dhacdadan ayaa si cad u muujinaysa kala duwanaanshiyaha wadankaasi ka jirta xilli xaaladdu ay aad u adag tahay iyadoo marka khilaafaadka siyaasiga ah oo hadda gaareen ra'yul caamka dhinacyada kala duwan ee wadanka Iranna ay si weyn u faaqidayaan madaxweynaha wadankaasi Mas'uud Pezeshkian ayaa caawa hadlay waxana uu tilmaamay in loo baahan yahay shacabku inay wax badan fahmaan haddii uusan murshidka ama ayatullaahiga Iran uusan ogolaan lahayn wada xaajoodka aan la galnay Mareykanka taasi macnaheedu maba noqon lahayn buu yiri in Mareykanka lala fariisto madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in dawladdiisu aysan marnaba gali doonin wax wada xaajooda haddii hogaamiyaha sare ee dalka uu amar ku bixin lahaa in aan wada hadal lala gelin wadanka Mareykanka Pezeshkian ayaa carabka ku adkeeyay in dhammaan tallaabooyinka ay dawladdu qaaday ay intii ay socdeen wada xaajoodku ay ku salaysnaayeen siyaasadda rasmiga ah ee jamhuuriyadda waa haddii hogaamiyaha sare uu bixiyo buu yiri amar ah in aan la gelin wada xaajood innagu maba geli lahayn ba wax wada xaajooda ayuu wariyaasha u sheegay wuxuu intaas ku daray in dhammaan go'aanada iyo tallaabooyinka la qaaday geedi socodka wada xaajoodka ay ahaayeen kuwa waafaqsan siyaasadda dalka uu hore u ansixiyay isla markaana aysan jirin wax tallaabo ah oo dawladda kaligeed ay iska qaaday
hadalka Pezeshkian ayaa loo fasiray inuu yahay fariin muujinaysa wada xaajoodyada Iran iyo Mareykanka inay si buuxda u haystaan taageerada iyo waliba ogolaashaha Mujtaba Qamani inkasta oo dawladdu ila madax bannaan ay diidan yihiin go'aamadaasi kuna tilmaamayaan in aan la qaadan karin tilaabooyinkii ugu dambeeyay. dhinaca kale wararka caawa ka imaanaya magaalada Doha ee wadanka Qatar ayaa ku waramaya in dawladda Mareykanka iyo waliba Iran ay gaareen isfahan kale oo hordhaca kaas oo muujinaya yaddiilo xilli dhinacyada la soo warinayo saacadihii la soo dhaafay inay si weyn isku haysteen. majalada Axios ee dalka Mareykanka oo soo xiganaysa ila xog ogaala ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iran intii lagu guda jiray wada hadallada ka dhacay magaalada Doha ay gaareen isfaham ku saabsan sidii loo sii deyn lahaa qaybtii ugu horeysay ee lacagaha Iran ee dibadda ku xayiran. sida warbixintu ay sheegtay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo waliba kaaliyihiisa Jared Kushner ayaa isku dayaya inay fariintan si cad ugu gudbiyaan Tehran, taas oo ah dalabka Iran in si cad loogu rogo canshuuro ama khidmado maraakiibta ay wiiqi karto fursadaha ay ku gaari karto heshiis dhammaystiran, taas oo muujinaysa in ay isbeddello waaweyn soo socdaan. isagoo xusay in The Axios ay sidoo kale sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in lacagta loo adeegsan doono $3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah Iran laga xayiray hadda gacanteeda gali doonto. warbixintu waxay tilmaamaysaa in lacagahaasi ay si toos ah oo cadaan ah loogu wareejin doono dawladda Tehran halkii loo adeegsan lahaa iibsashada badeecooyinka asaasiga ah, iyadoo qayb ka mid ah badeecooyinkaasi lagu iibsan doono shirkado ku yaala Mareykanka. doodaas ayaa hadda u muuqatay inay meesha ka baxayso. haddii heshiiska si rasmi ah loo dhaqan geliyo waxa uu noqon doonaa tilaabadii ugu horeysay ee lagu hirgelinayo qodobadii isfahamka ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran ay gaareen bartamihii bishii hore, isla markaana ay qayb ka noqon karayso dadaalada kalsoonida leh ee lagu xalinayo horumarka iyo waliba geedi socodka nabadda ee wadankaasi ka jira. dawladda Iran ayaa ku warantay in la soo gabagabeeyay wada hadal magaalada Doha ku dhaxmaray wafuud ka socotay dawladda Iran iyo wadamada Qatar iyo Pakistan oo ku saabsanaa sidii geediga farsamada wada xaajoodka hore loogu qaadi lahaa. kaaliyaha wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen wada hadaladii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Doha kulan ay ku yeesheen wafdiyada Qatar iyo waliba Pakistan, kuwaas oo diiradda lagu saarayay dabagalka hirgelinta heshiiska is-afgaradka ah ee u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka. sida ay caawa baahisay wakaaladda wararka dawladda Iran ee IRNA, mas'uulkan ayaa sheegay in shirka ugu horeeyay ee kooxaha kormeerka fulinta heshiiska lagu qabtay Doha, waxaana ka qayb galay wafuud ka socotay Iran, Qatar iyo Pakistan. wuxuu sidoo kale sheegay in kulanka lagu soo bandhigay cabashooyin Iran ee ku saabsan waxa ay ku tilmaameen jabinta Mareykanka ee qodobka koowaad ee heshiiska, kaasi oo la xiriira joojinta dagaalka ka soconaya wadanka Lebanon. sidoo kale wafuudda Pakistan iyo Qatar ayaa kala hadlay warbixino ku saabsan xoojinta ciidamada xoojinta gobolka iyo waliba joojinta hanjabaadaha Washington ee u jeedinaysa Tehran. kaaliyaha wasiirka amuraha dibadda Iran ayaa carabka ku adkeeyay in dhammaan qodobada ku jira heshiiska is-afgaradka ay yihiin kuwa isku xiran, isla markaana aan la kala qaadi karin ama loo fulin karin si kala gooni ah oo loo baahan yahay si isku mara in loo fuliyo sida dooda Tehran iyo Iran ay ka dhigan tahay caawa. wuxuu intaas ku daray in la isku raacay in ugu dambeyntii biri la sameeyo qad isgaarsiin oo degdeg ah oo loo isticmaali doono xubnaha kooxda kormeerka si ay ula socdaan hirgelinta qodobada heshiiska. dhinaca kale waxa uu sheegay in saraakiisha Qatar ay sidoo kale kala hadleen qorshaha ku saabsan sida loo isticmaalayo qayb ka mid ah $60 bilyan oo ka mid ah lacagaha hantida qaran ee Iran ee xayiran ee magaalada Doha yaala oo dawladda Qatar bangiyadeeda ku jira. kulamadan ayaa qayb ka ah wada hadallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe guud ahaanteedba lagu soo gabagabeeyo. khiyaarta nala socota tabinta iyo taxliilinta qaybtan intaas ayaan ku gabagabeynaya. Mahadsantiin.